السلام عليكم داوديال kusoo dhawaada wararka Banaadir Star Media aan ku bilaabay dawladda Itoobiya ayaa war culus ka soo saartay heshiiskii badda ee la gashay Somaliland taasi oo ay ku soo bandhigtay qiil yaab leh oo ay ku doonaysay inay ku qabsato biyaha badda Soomaaliya wasiirkii hore ee amniga dawlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa maanta dib looga helay magaalada Nairobi kadib markii lagu waayay isla magaaladaasi taasi oo keentay walwal xoog leh faahfaahin kala duwan ayaa iyaduna ka soo baxaya khasaare ka dhashay weerar culus oo xalay xoogaga al-shabaab ay ku qaadeen qaybo ka mid ah galbeedka magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaxda ee gobolkaasi Banaadir dhanka kalena ciidamada hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa maanta howlgal culus ka sameeyay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hirshabeelle qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan saaxiibayaal u diyaar garoow haddii Allah awood la ogolaado kuna soo dhawaada iyagoo faahfaahsan oo aad goordho maqashaan insha Allah aan ku bilaabay sida hordhac warka waad ku maqlayseen dawladda Itoobiya oo war culus ka soo saartay heshiiskii badda ee la gashay Somaliland ayaa soo bandhigtay qiil yaab leh oo ay ku doonaysay inay ku qabsato biyaha Soomaaliyeed Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha amniga ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in Itoobiya wax kasta ku bixinayso inay hesho marin biyood kaas oo ku tilmaamay inuu muhiim u noqon doono malaayiin qof oo Itoobiyaan ah sidoo kale wuxuu tilmaamay in Itoobiyaanka aysan sii noolaan karin haddii aysan helin marin biyoodka haatan ay Somaliland u saxiixday waa sida uu ku dooday Itoobiya ma noolaan karto haddii aysan helin marin biyoodkan waa muhiimadda koowaad ee baddeena sidoo kalena waxay kaalin muhiim ah ka qaadanaysaa nabadda iyo amniga gobolka ma dhayalsan karno arrintan ayuu yiri ambassador Ridwaan Xuseen waxa uu sidoo kale intaasi ku daray inuu marin biyoodkaasi haddii ay helaan oo qayb ka qaadan doono horumarka dhaqaalaha iyo bulshada Itoobiya isla markaana aysan cidna waxyeelo u geysanaynin ujeedkooda wuxuu ku tilmaamay inuusan ahayn inay qabsadaan dhul badeed ay tahay kira uun kaliya waxay doonayaan taasi oo fursad u siinaysa Itoobiya inay hesho degad ay wax kala soo degto ma ahan inaan qabsanayno dhul ay cid kale leedahay waxaan kaliya kireysanaynaa dhul sida qof kasta oo jooga Somaliland anaka ma ahane waxaa jira dalal horay u lahaa saldhigyo kuwa kalena safka ayay ugu jiraan inay helaan marin biyood ayuu sii raaciyay hadalkiisa hadalkan ayaa isagu ku soo aadaya iyadoo haatan ay Itoobiya wajahayso culays la xiriira heshiiskii ay la gashay Somaliland waxay soo muuqataa inaysan dhag jalaq u siinin baaqyada caalamiga ah ee la xiriira xadgudubka ay Soomaaliya kula kacday Itoobiya xilli ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay muujisay sida ay uga go'an tahay difaacidda madax-bannaanida dhuleed ee Soomaaliya si kastaba dawladda Soomaaliya ayaa dagaalka diblomaasiyadda kaga adkaatay Itoobiya iyadoo taageero caalami ah u heshay difaacidda dhulkeeda kadib markii ay burisay heshiiskii Muuse Biixi oo Addis Ababa kula gaaray maamulka Abiy Ahmed wasiirkii hore ee amniga dawlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa maanta dib loo helay kadib markii hore loogu waayay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya taasi oo keentay walwal xoog leh General Yuusuf Xuseen Cismaan Dumaal oo hadda ah wasiirka amniga Jubbaland ayaa xaqiijiyay in isagoo nool Nairobi laga helay Janan kadib maalmo warkiisa la la'aa wasiir Dumaal ayaa sheegay inuu hadda nabad qabo Janan isla markaana ay faahfaahin ka bixin doonaan arrimihiisa iyo xaaladda uu hadda ku sugan yahay wali ma jirto faahfaahin rasmi ah oo laga helay cidda uu ku maqnaa balse waxa la xaqiijiyay in xalay hoogiisa la keenay isla markaana uu haatan ku sugan yahay warar hore loo baahiyay waxa lagu sheegay inuu gacan u galay sirdoonka Kenya balse waxa haatan laga warsugi doonaa faahfaahintiisa maadaama la sii daayay arrinta Cabdirashiid Janan ayaa cirka isku shareertay kadib markii eheladiisa qaar ka mid ay sheegeen in la dilay halka kuwa kalena ay ku warameen in la afduubtay sidoo kalena waxaa arrintan ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo baaq cod dheer ah u diray leemaha ammaanka ee Kenya kana dalbaday inay meel ku sheegaan Janan Cabdirashiid Janan oo ay waayihiisa marxalado kala duwan soo mareen marna lagu xiray magaalada Muqdisho ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ay mar ahaayeen saaxiibo ay aad iskugu dhow yihiin faahfaahino kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay weerar culus oo ay xalay xoogaga al-shabaab ku soo qaadeen qaybo ka mid ah galbeedka magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir weerarka waxaa lagu ekeeyay saldhigga ciidamada xasilinta ee loo yaqaan booliis militariya oo ay ku leeyihiin halkaasi kadibna waxaa xigay dagaal fool ah oo u dhaxeeyay labada dhinac dagaalka ayaa ahaa mid aad u xoogan kaasi oo ay saameyn ku yeesheen dadka deegaanka balse ma cadda khasaaraha ka dhashay
saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka oo ka hadlay dhacdadaas ayaa sheegay inay ka hortageen weerarka ayna khasaare gaarsiiyeen xubnaha duulaanka soo qaaday al-shabaab. dhanka kale ilawareedyo madax bannaan ayaa iyaguna sheegaya in dagaalkan lagu dilay 9 askari uu ku jiro taliyihii haystay saldhigiisa kaasi oo magaciisa oo keliya lagu soo gaabiyey Carab. qarax xoogan ayaa sidoo kale ka dhacay isla degmada Kaxda kaasi oo jugtiisa si xoogan looga maqlay gudaha degmadaasi. qaraxa oo ahaa miino ayaa la soo warinayaa inuu ka dhacay kontarool ku yaala halkaasi isla markaana ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka ee Soomaaliya. xaaladda ayaa hadda degan waxaana dib u laabtay xubnihii al-shabaab ee xalay weerarka ku soo qaaday degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. weerarkan ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay ay deganayd xaaladda ammaan ee Muqdisho kadib howlgallo ay sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya. ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa maanta howlgal culus ka sameeyay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe ee maamulka Hirshabeelle. howlgalka oo ka dhacay duuleedka degmada Maxadaay ayaa waxaa lagu beegsaday xubno ka tirsan kooxda oo ku sugnaa deegaanka Fiidow ee Shabeellada Dhexe. war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya waxaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu dilay ilaa 7 xubnood oo ay ku jiraan horjoogayaal sarsare. 7 dhagarqabe oo ka tirsan khawaarijta ayaa lagu dilay howlgal qorsheysan oo ciidanka hay'adda sirdoonka nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ay ka fuliyeen deegaanka Fiidow oo hoos taga degmada Maxadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya. sidoo kale waxaa la sii raaciyay dhagarqabayaasha lagu dilay howlgalkan waxaa ka mid ahaa 3 horjooge oo kala ahaa Cabdiraxmaan Dheere oo hadda khawaarijta u qaabilsanaa weerarada gaadamada ah ee kooxdu ka geysata gobolka Shabeellada Dhexe. horjooge Mucaad oo asna ka tirsanaa isla qaybta weeraradaasi khawaarijta ay ka geysanayaan gobolka Shabeellada Dhexe. horjooge Cabdirasaaq Muuse Khaliif oo ahaa ku-xigeenka horjoogaha baada iyo boobka shacabka ay ugu yeeraan sakawaadka. wararkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale sheegaya in weli howlgalku sii socdo isla markaana dhaqdhaqaaq xoog leh laga dareemayo dhulka hawdka ah ee Maxadaay. Shabeellada Dhexe ayaa ka mid ah meelaha lagu jibiyay kooxda al-shabaab maadaama wejigii koowaad ee howlgallada ay ka dhaceen deegaanada maamulka Hirshabeelle. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii aad kala socdeen Banaadir Star Media. waad ku maasantihiin daawashadiina tan iyo kulan dambeyntiina hawada mar kale dib ugu kulmi doono. waad maasantihiin saaxiibayaal, nabadgelyo.